Aisoo baxday inayn i cuntamayn noloshaydu inay tahay islaamo 60 jira baan iska u sameeyaa qurux badan basically that's waxaan sameynayay kaas waa wax kaleeto nolol kaleeto oo micno leh oo wax samaynaysa ma jira waxa ay barbar taagan Somaliland u baahan dad oo maxaa la yiraahdaa aqoon u baahan oo hawl u baahan ha maalin kasta waxaan canaananayaa dadka ka imaanaya meesha tayadooda iyo sida ay u xaalada farsamadooda iyo qabiilka iyo wax ay ku jiraan ba aad ii dhibaysay inaan canaanto waa inta marka calaado article dheer baan qoray waxaasan sii daaya hay wadalaada iyo wanaaga iyo maxaa la horumarka dadkaaga aad doonaysid inay meel gaaraan de maxaad qof canaanaysa maadu meesha tagtid way u soo dhacday qof ma canaanan kartid adigoo halka fadhiya de ma tegi karo maxaad u tegi weyday de aqaliya mortgage baa ii jooga xayaan waxaan kaga tegi karaa تعاقبني أدويري ماشي هتكتب واد كيري تعاقل إسكي يبيكن وكلجي أنا أصل الضوضية بروسكي كونكي طبق توارن إسكي يبي ويدبا أغلات المراكن اللي لما لها وتدير موجز صدق سنة بطل بحنسة أنت أدنى شهر بحنسة صدق بلوها دي أدبحين ويدنا ولا قاعدا مركو من أنا ولا شيء أعطيك إسلامتي وأنا يا كوان بنجارين أنت كان دوني maxay kula tahay maxay tahay go'aanku de waa guurinaa xagee u guurinaa de Hargeysa ama Nairobi ka doontid goorma بريتو نقاشي إمكن نقاشي كذا القرعة وعلى ونحسن لما أنتي بكسر هذا محاعصب يمر عصب ما أنت حلقة إنه وحوي وحلقة تطبيق لبعض هناك فرح باني نوتين المكان تطبيق لبعض هناك بزود بل أنا ينسود إنه متكبر هذا محامن تكون عسل إن المكان هلا الكي ودنا كده كوسو كوري يقرب حق سو حاجري ولو أمريكان كأي واشنطن ما نقرب بدن كي وهرجيسها صوتي كفريق رأسي كشغيستي دقي انتبه هذا واحد بدنا نشيء معي أنا كسر دوية دكتور مهدي أحمد عمر كاسي اختار كتخصص الكهرباء سمينا مركزي من آدي وناس لها نوبل كلينيك يوحد هاي أي يتجون لكن ما كهرباء سلو وهذا ما صدق خضر روتين آديات أيامكو تهنيدينية برنامج كان بودكاست كان سميسي و very very interesting هوران دور قيبود oo had qoloyn aad wareysatay aan daawaday waa wax runtii engaging oo dadkii soo jiidanaya marka waa taasi waxa weeye waxan bali oo ku wada runtii anigu yaad madana aqoon lahayn oo badan ma joogay wada shaqeeyna marka hore maadu dadkii Mareykanka waqti hore galay baa bal marka hore waxaad wareysi naga siisaa kooban bal joonigii adiga Soomaaliland wadadii dheereed ama qodxaha ama si wanaagsan ha noqotay ku kaliftay Soomaaliland soo guurtay maxay wallahi waa taariikh dheer waan soo gaabinayna ma wada sheegi karno yaanu muqdishaan ku dhashay Soomaaliland maxaa la hore u tagay أنا عيالنا ودك وكتجي تضوية وسيدي تمام عشرة مرات مريك ما رتكو كرو جامعة ذاك جاب حيو كل شيء عرفت يدك وضع عليه هالكاس واحد عندنا دوري صوت الصلاة ما هو هاي الغالي سيدي تنيدي سيدي exactly كيبوه رئيس مالله exactly هو إن يربنا ثمانية كوينة وش برجعتي سوادي يغنى طبعا أرضي والله أرضي والله أرضي wax kale oo barigan dhoofi jirnay wax kale loo dhoofi jiray qofku arday uu soo noqon jiray wuxuu soo baran jiray uu soo noqon jiray ki saaqeedana magaalada meeshii iska gali jiray marka intaas aan ku joognay marka de nolol adag oo de runtii aan filayn waxa way fikradda ka haystay maxaa qurbaha iyo waayo barigan dhoofi barigaas anu Soomaalidu ay dhoofi jirtay oo tacliinta doonan jirtay waxa lagu dhoofi jiray de nin scholarship wadankii u diray ama ruush loo diray ama tayana loo diray ama ingiriis loo diray American diray iyo denin reer ladan ka dhashay oo wixii qarashii laga qabanayo laakiin anagu waxaan iska ahayn while was ka soconis ma de waxaan baranay meel la yiraahdo dishwashing si dugsiga loo dhigay lahaayo maxaa la yiraahdaa fast food looga shaqeyn lahaayo ilaa kredit laga doonaya jaamacadda laga doonaya transportation laga doonaya waxaasoo dhan aab ma jiro hooyo ma jiro qof ku soo diray baada ku saaran tahay marka Mareykanku wuxuu ku barahayaa wax la yiraahdo isku filaasho wuxuu ku barahayaa dadaal adigu inaa noloshaada aad ogaatido maxaa la yiraahdaa wixii aad sameysay ha noqotid 4 sano
igu horreysay Maraykan joogay maalin wara ma seexan waa shaqaynaya inta aan waday intaan soo shiidana shughul bas ku maray subaxdii habeenkii waxaan ka jiray waxaan seexan jiray 3 habeenimo meelahaas markii aan shaqada ka timaadii waa inaad homework-aagii hawshaadii ardayna waa tahay inaad gashaa markaa kadib meerataa seexataa subaxdii bas raacdaa ardaydan gaari ma jiray waa weye barafkii qabowgii waladu nolol runtii aad iyo aad u adag ayaa la soo maray oo dee keentay qofka inuu adkaado ama waa sinko swim baryad ama waa dabaalan ama waa quusi soo maha marka meelan ku quusan ma joogeen waa inaad dabaasho aan bartay marka dee qofkii dadaala runtii natiijuu ka keena nolosha marka noloshana waxay kugu khasbaysaa Maraykanka weliba the East Coast-ka dadka jooga Washington iyo New York iyo Boston areas maxaa la yidhahdaa nolosha aad bay u adag tahay waayo laakiin opportunity badanna way joogaan hadda Maraykankii weynaa iyo Southka iyo waxaas wuu ka duwan yahay international community baa joogta waxa weeye cosmopolitan weeyaan marka it's very easy inaad ku dhexlunto aad ka mid noqotid mujtamacaas waad degtay waad ka shaqaysatay in badan baa joogtay markaasi bal maalin baad markaasi may kusoo toostay hargeysatay process buu ahaa maalintii aan goostay inaan soo guuro sanadkii ka horreeyay haddaad i wareysan lahayd odan lahayd warina ma hargeysa ma qaban warwaarantaan ku oran lahaa maxaan ka doonayaa ya ma wax noocaad waxay weyday waxay ii hedee ma Afrika maya ma Afrika ma de markaa waddanka wax badan ka maqan tahay dabeecadihii iyo fikraddii iyo maxaa la yidhahdaa noloshii ayaa aad u kala duwan dhowr jeer baa halka imiyo hargeysa imiyo waxay igu noqotay de meel runtii aad u adag soo maaha markii la eego dadka meel aad seexatid iyo waxa cuntay meel kastoo aad joogtid dunida waad ka helaysaa soo aragta maaha dhibaatada meesha ka taalla waxa weeye haddaan imaado tanina waa wax dee Soomaalida dibadda joogto la haysta siyaabaa nolol ula soo bixi karaa wey meeshii dee shaqo ma taalo mida adigu abuurtid maahe dee qof kastana ma laha xirfad uu dee shaqo kaligiis ku abuuran karo soo maaha oo dee uu keeni karo dhakhtar iyo lawyer waxaa noocaas waa wax transportable oo la qaadi karo meel walba la geyn karo laakiinse wax kasta haddaad haysid shaqo kalato nooc kasta ma NGO baad ka doonaysaa adoo intaa leeg waa the only opportunity meesha ka jira moogtaa markaa timaadid marka ma dowladda u shaqeyn dowladda imise xamili kartaa soo maaha qolooyin baa kaaga soo horreeyo dee meeshii wada jooga marka ma arki kartid haddaad dibadda joogtay halkaa inaad nolol kala soo bixi kartaa waana xaqiiqada jirtay aniguna taasaan qabiyaa marka waxaa dhacday maadaama Washington aan deganaa wafdiyada Somaliland ka imaanaya oo dhan ay Washington bay imaan jireen oo wixii ay u baahdaan oo ama dowladdii ama press media wixii loo qaban lahaa kulligood ilaa dowladda cigaal Allah naxariistay dacagtina soo wada mari jireen dadka Washington degan oo dhan waxay community-gii support gareynayay bay ahayn Somaliland wixii ka yimaada oo waa loo dhamaystiraa Somaliland wax la yiraahdaa jirtay taasaan ku dadaali jirnay inaan wax la qabanno wax ka qabanno marka waan ka go'i waayey soo aragta maaha waddankii baahida u qabada waa ii muuqataa dad maxaa la yidhahdaa noo imaanayay runtii de markii anigu aan salugsanaa markii noo yimaadaan iyagoo aan diyaarsanayn iyagoo aan codsi wadan oo arrinkoodu ahaa sawir inay galaan oo yidhahdaan qadiyaddii maxaa la yidhahdaa wax ka gaarnay oo wax weyn ayan ka imaanayn ma lihi kulligood saasay wada ahayn laakiin intooda badan noocaas bay wada badnaayeen marka mar walba waxaan ku canaanay war waxa kan maxay yihiin dadka waxaan sabab waddankan u jira waxaan baa u tarinaya waxyaalo noocaas hadduu mucaarad aan dhammaanayn baan iska wada ahayn kulligeen keligeen ma hayno marka nin baa beri wuxuu ii sheegay wax wanaagsan oo iga qosliyo oo iga yaro weynaa wuxuu yidhi dadka waxaanu dheer nahay haddaanu reer Somaliland nahay sababta aanu weli u jirnaan kuu sheegaya maxay tahay waa nasiib badan nahay maratis weeyaa that's the reason why aad wax nooga hagaagtay oo mid ilaahay jumhuuriyadda barakaysan soo lama yiraahdo taas waxbaa ka jira marka calaa kulli xaal inkastoo dee noloshii laga iibiyey Maraykan markaa imi oo yidhi shaqayso oo waxbaro oo maxaa la yidhahdaa guri dibadda magaalada dibaddiisa ku yaalla iibso oo maxaa la yidhahdaa nolol samayso intii oo dhan markaan gaaray dee weli meel baa imaran markaas Virginia ayaa markaa degtay guri weyn oo bangala ah ayaa samaysatay markaa dadna goormay bilaawday Johnny iyo Hargeysa jacaylkii waad ku haysaa dadkii goormay ku dhalatay inaad soo gudbid waxay igu dhalatay adigu dee wax mar qura kugu dhacaya maanta waa progression wax hadda sii badan imaanaya moogtahay marka waxaan qaatay leave of absence baan qaatay shaqadan ka qaatay 3 bilood fasaxa
baan ka qaatay UK baan tegey waxaan ku tali jiraa bal inaan bal xoogaa maskaxad aan jooga aan bedelo ماشي لنا ما كده لنا متى waxaan tegey Manchester kulina qarabana halkaad ka iyagan xoogaa la soo joogaya de Manchester markaan Mareykanka ka timaad Ingiriisku waa tuulo yar ay guriyay yiraahdo xalaje council house-kii waxa noocaas baan soo arkay marka waxaan hayay tan hageesa badata soo ardaa adoo xoogaa baan joogay ima bixin markaan Mareykanka soo noqday waqtigii aan shaqada ku soo noqonayay ayaa soo dhawaaday marka every day depressed si noqonay ma timaan ku noqonahay markii taasi qabsatay baan isbarastay waxaan warheede why are you feeling this way maxaa u dareenkan waa maxay shaqadii aad 20 sano ka shaqeynaysaa oo tagaysaa caadiga noloshaada baad haystaa what's going on maxaa taran shaqadaas nacay waxay ahayd wana klinikada ugu waaweyn oo Northern Virginia ku yaala wax kale ma sameyn jirin waxa la yiraahdaa prosthetic dentistry weligan ilma aan buuxin ilma aan saarin waxa laga hadlayaa qof ku iimaanaya koronaya de Angelina Jolie iyo KC soo arday Hollywood my Bollywood doonaya marka hada perfection kala doonayo iyo waxa la doonaya in la keeno no room for error waxa ma qaldi karto waa inuu noqdaa perfect wax ka soo asmaysaa marka pressure ku under microscope waxa lagu sameeyaa marka it was very intense marka waxa dhacday inaan diyo maxaad hataa meeshan aqsada man ana asla hadlay marka qofka ma jiro wallahi kariya meel fariis shahan iska cabayaa man depression kii marka ay evaluation isku sameeyay dadku islaama hadla moodaa marka busy tahay oo nolosha lagu ayimay waqti aad ku fikirtay helmaysid marka maadaama aan waqti haystay ayaan awood waxaan ku helay fursad ku helay inaan iswaraysto maxaad noloshii aad intaas waxa aad dhistay what's going on maxay ku dhibaysaa waxa ay soo baxday inayn cuntamayn nolosheedu inay tahay islaamo 60 jira baan iska u sameeyaa qurux badan basically that's waxaan sameeyay kaas wax kale oo nolol kale oo micno leh oo wax sameeyay ma jira waxa ay barbar taagan Soomaaliland u baahan dad oo maxaa la yiraahdaa aqoon u baahan oo hawl u baahan ha maalin kasta waxaan canaananayaa dadka ka imaanaya meesha tayadooda iyo sida ay u xaalada farsamadooda iyo qabiilka iyo wax ay ku jiraan ba aad ii dhibaysay inaan canaanto waa inta marka carado article dheer baan qoray waxaasan sii daaya hay wadalaad iyo wanaag iyo maxaa horumarka dadkaaga aad doonaysid inay meel gaaraan de maxaa qof canaanaysa maadu meesha tagtid way u soo dhacday qof ma canaanan kartid adigoo halka fadhiya de ma tegi karo maxaad u tagi weyday de aqal iyo mortgage baa jooga xayaan waxaan kaga tegi karaa de aqabniyaad weyday meesha tagtid waad ka heltaa aqal iska iibi kan waa keligii ana asla doodaya بروسكي كونكي طبق توارن سكيبي وايد با اغلبيه المراكن اللي لما لها وتيدير موجز صدق سنه بعد بخنيسا انت اد نو شهر بخنيسا صدح بلود هدي اد بخين ويدنا ولا قادن marka waa nolosha aad adagtay islaantii waanu yahay kuwan bangaariin inta kan doonayay maxay kula tahay maxay tago aan diga guurina xagee u guurina de Hargeysa ama Nairobi ka doonti goorma بريتو نقاشي بس إمكان نقاش يدري كورة نيروبي نادي مني هرجيسة نتيجة دابت أفبحل ولقي الصومالي متي هرجيسة نيمان وارد كينيا يد وارد كينيا ما هي يدري نفتح كسوري مالك ولقي المال هرجيسة يارك مرحمر بينا هذا مال ما يارك واي هرجيسة تيجي نسمع وارد فرح من صاحبنا هاي وتقولنا قراءة ويجا أو ده فريد سيد كشرة أيان قراءة وار فرح وروان قوري يقول جيب واريو عيار سما دي كده واحد بسنا بير والله وانت جيا ما دعي كرتها واربلي كلام كوي ماذا حافظ يقيم حاتري وتجيها حاجة يزهق جيسة وروح والد ما والله ويقول أنت وتجيها والله هاي حكى إنه واحد يقول دقيقة ما هي تقول لي أنا كوكري بس كيبني opportunity كروت ها حاول يبين سأقولي قولي يلا تك وحكى سادعي كره إني سو أرجع you know things هذه حاجة وين at least بلا بسون قطعي وحبال كويال ما شرت بكويال ما صنعي burning the bridges بعد هذا هذا هل كان وحكولها حكى وحكولها لبا هو يبان يلانيا
dooni ma laba hooyo inaan yeesho go'aan baan gaaray xaggaasan tegayaa wanaagii xumaan waxay doontaa ha noqoto waa tegaya wax ii diyaarsan iyo waxa aan samayn doono iyo waxa aan qabanayo iyo meesha aan tagayo midna ma jira go'aankii wuxuu ahaa waan tegaya that's it maraykan joogi maalin qura joogi maayo 1 month baan meel fiican buu ku yaalay 1 month baan ku iibiyey 30 sano noloshii aan soo dhisiyey ayaan bil gudaheed 2 bilood kusoo tirtiray wixii credit cardki bixi maxaa insurance-ki bixi gawaaridii wareeji kii aad iibin kartid iibi wixii dhan islaantu waxay gaari gurigayga waan qaadanayaa 40 foot container oo soo qaada xaafadeedii lama soo raray markii baan soo saaray Nairobi si tageen iyadii ka yaraa anuguna dee waan ka dambeeyey dee taxeskii iyo cashuurihii iyo wixii baan xirxirhayaa 2 bilood baan ka dambeeyey waxaan soo noqday I think it was April 2013 samahay soo noqday soo noqday waan imi halka jigjiga yaraan ku tegey guri baan ka kiraysanay jigjiga yar container بعد 6 weeks later بدي برمي حسب نوجيمي لا قاري لا صار قاري نوك صار قاري نوك صار جيمس قاري مريء أنا كسر لا أروح هاي مركب شيخ قصر بدل واحد قاري عربتي ولا تشتري باليري اللي جيت تشتري ما كنتينر السوق على هالكريك هرجس على يوكر كنتينر كم كسر بالبلد وان كيري مركب xaafadda maadaama la soo raray professional baa soo raray marka mid kasta wax kasta box bay ku jireen everything qaada ma jabin wax ka jabin ma si u soo qaybay amazing way dadkaas markii aan soo degay baa xaafaddii la soo baxday boxyada baa la gelinaya halkan guri halkan lagu gurahaya way yaabeen askar bay ugu yareen askar waa nin madow oo lahjadiisa aan garan weynay baa halkan joogo halkan wax ku gurahaya حساب قرايه كاري لو يكوي ما ميد واتش مين او بي وقتين اني ما له وحو هان كان waa ma كبوس markay baqlay way iska tagaynay een ayaan markaan joogay waxa reer waxa naga soo horjeeday jaaro oo iska danyara oo khadri wax siin jirtay oo maxaliyada markuu wax u baahan yahay adeeg markay qabato waxa uu soo adeeg jirtay markuu ninkii nabartii buu nooyay oo yaar deena ayaan dacwo iga raal marka security waxa weeye waxa anigu kama caroon oo maxaa la wax kale ma waxa ii noqotay wax runtii inaha ii furada security wadanku kuma jiro dawlad gacanteeda dadka ku jira dadkii ku jira waana wax dadka runtii ay dheeriyihiin dad Soomaaliya degdeganaha qofkii garan waayaan wixii war kan garan weyn bal hal soo baaraha waa very interesting bay marka waxyaalaha aan ka helay way ka mid ah soo harad ma waxyaalaha badan oo marka waa degaa in marka waa iska magaalada iska baranaya ma qayilo saaxiibina magaalada kuma lihi mana seexdo umadu waa galab seex baa la yaqaan marka la qadeeyo marka 12 gaari sariirtu waa noo diyaarsan ama marfishku diyaarsan marka sidii wala magulisa ugu wareegi jiray magaalada qofka kama qaan moogto marka way u adkaatay waxa taa eegsi dareed hawl ma haydo nin waligii shaqeynayay baan ahaa 7 days a week oo iska fadhiyaa wareeraysa uu nooshiin وبيعرض ولا ربما لنا حسبان لنا ويا المصرف وهذا ساقط إلهي بقى أنا كنت تاس وأيشو وفير unusual هذا تقف لي هذا وحوس كإيمان سوا وإن تصور دي أو وحسوس ما يصير ما هي ده وحكو إيمانية مشرع على كل حال إن مركب حاجة مركان شو هذا والله بلا سطح بلاد بنمارين أنا جو شوجا إن منصور شاكع بيه 10 o'clock ملاس أتمنى أيام بعد عندنا سوقش النعد ويارتي استاغ حق بركي وزيرك ايد بان سو دوغي واحد قوليكي لا شقيني بان كميد اها بعد اسمع ما جد قول ما واحد صدح افر بالواد شو قاعد واد شو هو خير قول انا ورسل نقول معي نقول مش ذا ما دعوا نسوري ما شاء الله تسبيح سبحان قبنسه تي وحبا وري وحبا تي ماشي هذا انا ميو ماشي بان يرى ايغيو ولي waxaan hadda goostay inaan sameeyo oo idiyaas mashraani oo noocaas laakiin waxa jeclaan lahaa baan ku yeedinaa maadaama siyaasadda iyo waxaas markaan arkay halkan siyaasadoodu sida tahay oo arinku aad u cakiran yahay luqadda ay ku hadlaan aan fahmin baan waxaan iska niyeystay bal atis waxa xirfadda aad taqaanid gudbiyo bal ciyaar dhalinyaradii wax barbaarada marka taasaan ku tirsanaa oo ana meel ku hayo takaali jaamacad baan leeyahay
way ka xisab adri this is the place wax alla li wixii staff support u baahan ana ku siinaya adiguna maxaa leeyahay curriculumkii iyo maxaa leeyahay schedule-kii iyo macallimiintii adug this maxaa leeyahay faculty-gaas dentistry jaamacadda adna dentist department malaha waxa weeyaan waa golo kafuul labadiiba absolutely waa mansuur bashaah lagu cabay shaah lagu cabay kaalay ha oo waxaan qabo ha way sheega cajiib samaha waxa uu really ha dawr shaqay anigu waxay ahayd fikir aan rabay himila aan doonayna inaan gaaro oo sameeyo wax matalay laakiin reality-ga aybi platform-kii waa ku diyaara ima uu sameeyo kala sameeyo wow fantastic baa riwaayad nagaati demeshi aan ka bilaabay marka academic-ina ana la wareegay support system-kina de jaamacadda baa bixisay oo keentay meeshii marka koob iyo toban laba iyo toban arday baan ku bilaabay إذا واحد كان واحد اللي يغني ما هي الموت. ما سمعنا ما كتش تا دنتل سكول ما كتش. عمود ما هرجيس كم جت. هرجيس كم جت. ماشي إن ويكو بعدي ويكورتي ولا برتي ده واحد كم من نقطي within the third year سنة كذا حد بقول الأرضي أيا. ما كان واحد مرة إلى 2014 وين by 2003 years by 2017 waxaan capacity dentistry wuxuu kaga duwan yahay faculty-da kaleeto agabkiisa badan agab badan waa inaan leedahay kuraasi buu u baahan yahay ardaygii materialkii buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay laboratory buu u baahan yahay marka waa very expensive department in maxaa la yiraahdaa maintain kari ardadiina way yar tahay sooma marka kharash aan yarama meesha galay runtii intiisa badan waan isugu tananiyay laakiin aadna iga xoog badneed wax badan meesha galisay hadii ilaahay yiraahdo marka laga hadlayo support me investment kadibna by the third year waxa isbixiyay bade systemkii isbixiyay marka waxa noqotay macallin